أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذياني سلام يا دمانتين ملبود joogtiin. maanta waxaan jeclahay inaan ila qaybsado vloggan yare kooban oo ku saabsan guuritaankaygaan ka guurayo magaalada London, gobolka England. aanan u guuriyo magaalada Glasgow, gobolka Scotland ee wadanka Ingiriiska. run ahaantii London muddo aada u fog ayaan kusoo noolaa. waa meel aadaan u jecelahay. cimrigayga 2 marka loo qaybiyana qayb ayaan kusoo qaatay marka laga reebo 4 sano oon wadankii aan soo joogay. waqtiyo macaan baan kusoo qaatay, waqtiyo wanaagsan waan kusoo qaatay, waqtiyo adagna waa igu soo maray runtii. waana qurbe iyo xaalkiisa. aad ayaan u jecelay. xasuuso badan bay runtii igu leedahay. waa meeshaan ubadkayga ku dhalay. alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaan taaganay maanta waqti aan ka digaroganayo, aanan u wareegayo magaalo kale. sadarkiisiin hadda waan guuraya. alaabtiibaa i xirxiran. waxaan jooga wasbaankii alaabti gurayay. waxaan alaabtii markii la raray soo raacnay aniga familigaygu tareenkaasoo soconaya muddo 4 saacadood iyo bara. waana tareenka faaska ah ama degdega ah, kaasi oon magaalada Glasgow ku tagnay aniga iyo familigaygu. maasha allah wuxuu ahaa short trip aanan aada u fogeyn ayay ahayd runtii, oo iska kooban. alxamdulilah rabbilcaalamiin. waana iska fududayd runtii. guuritaankan wuxuu ahaa guuritaan aada igu fudud oo runtii wax caqabaada ama dhibaata aanan kala kulmin. waana markii ugu horeysay ingiriiska intaan deganahay aan intoon magaalo kale ka guuro magaalo kale aanu guurayo. waxay ahayd experience wanaagsan runtii. hadda waxaan soo gaarnay magaalada Glasgow. saa sawirkan iga muuqata waa magaalo runtii aada iyo aada u qurux badan. anu ahaan aad ayaan uga helay. muddo ka horna waan soo sahamiyey, waana soo arkay. research badanna waa ka sameeyey nolosheeda iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay magaalada London ee muddada ku noolaa, oo iyadu ah caasimada wadanka Ingiriiska. run ahaantii wax badan bay kaga duwan tahay xagga deganaanshaha nolosha, xagga servisyada kala duwan, xagga caafimaad hadday noqoto, waxbarasho hadday noqoto. waxyaaba badan ay kaga quality fiican tahay ayaa jira runtii. London waa meel wanaagsan, laakiin London waxay ku fiican tahay mar walba qof single oo shaqaysanaya ama qof wax baranaya oo keligiiya. balse markay family noqoto iyo caruur, run ahaantii waxaa qurux badan mar walba oo wanaagsan inuu qofku magaalooyinka yani ka baxsan caasimada inuu dego. waa sida ugu fiicane haddii uu qofku fursad u helayo. runtii qofkuuna heli kalaa fursadaasi. aniga ahaan hadda bedel ayaan samaystay. guri permanent ayaan deganaa. kadib waxaan galay home swapper. 2 week gudahood ayaa waxaa igu soo baxay guri run ahaantii aan xataa u bogay oo aada uga wanaagsan ka hadda aan deganaa, oo apartment ama flat ah. kana uu yahay house. marka la eegana oo aada uga wan yahay, oo aanan aada ugu qanacnay maasha allah dhammaantayo. alxamdulilah rabbilcaalamiin. qualityga nolosha markaan research badan ka sameeyey magaaladan Glasgow, wallahi waxaan arkay inay aada uga duwan tahay, wana wanaagsan tahay London. tusaale ahaan caafimaadka oo kale waxaa jira waiting list dhaadheer oo la galo London, balse halkan ay ku fududahay oo dhakhtarka markaa appointment ka samaysata aanad sugaynin muddo dheer, balse aad markiiba lagu arkayo. sidoo kale xagga nolosha oo 25% ka jaban London. xagga pollution la-aanta oo dhul nadiif ah, hawo nadiif aad qaadanaysid, iyo weliba cunto nadiif oo cunto fresha aad helayso. hilib fresha, kalluun fresha. mastirina halka hilibyada looga keenay wadanka Ingiriiska ayaa ay qaybtan tahay. runtii waa Scotland waa gobol iska ladan oo aada wanaagsan, oo qualityga noloshiisuna ayna xumeyn. run ahaantii waxaan rajeynayaa inay noqoto meel wanaagsan oo ku degno, oon runtii nolol wanaagsan aan ku qaadano biidnillahi alkariim. meel walboo la joogo wallaahi way fiican tahay. yani dee waa waxa weeye in dhul ilaahay bas waa la iska ducaystaa la yidhaahdaa ilaahay oo nagu nabadeel meel walbaba. dhulkii ciyaalkaygu markii aadka u yaryaraayeen wadankii bay joogeen. hadda markaan soo noqonina Glasgow ayaanu soo digaroganay. waxaan jeclahay inaan tallaabo inila socodsiin doono nolosha halkan. waad mahadsantiin. salaamu calaykum.